السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا خالقة وين السلام ملك استأذن كتوكتين واني قاصقة يوتيوب channel كأنا قد ونسين واسقة عبد السود وهذا أصحابته كسود وهذا channel كا سبسكرايب سارة لايك سارة جنبنا كفرشة سود وهذا أصحابته إيجا عاوي وحيابها سودم ما أنت وحيني هاي شيكو وحكلو إني وذا مرتي يقول قالي وقدر قالي martida aniga waaye janalka aan marti ku ahay waa sagal cabdi janal asxaabta qaaliya magacaygu waa qadar qaali janalka youtube-ka aan kusoo galana waxa waaye qalbi wanaag official waa isoo booqan kartiin marka waxaa idin leeyahay wax badan iga faa'iidi doontiin isoo booqda anigana qalbi wanaag official waaye marka janalka sagal cabdi waxaa idin leeyahay kor u qaada waa cusub yahay qalbigeeda aad buu u wanaagsan yahay waa guri weyn guri ma dhihi karanayo meel weyn waay meesha hartiina ka digi kartiin marka waxaa idin leenahay biliis waxaa idinka codsanaa janaalka sagal cabdi inaad kor u qaadaan waa gabar walaasheena wax ma idinka dhibaayo meesha guduudan ayadana waxba u tiraa idinkana wax ma idinka dhibaayo meesha guduudan leh farta dhac leeg dhash commenti dhag 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 yaa sax support gareeya gabadha walaashin waaye kor u qaada janalku waa cusub yahay yaa marka xaasidnimada ma fiicno walaalayaal kor u qaada janaalkan sagal cabdi xaasid ma liibaano nabiga sallallahu alayhi wasallam hore u sheegay al xaasidu laa yuflixu abadan weligiis ma liibaano xaasid marka qof Soomaaliya hadaaba aragto walaasha ama walaalka u taabo leh wax ma ka dhibayso iyadana waxay u taraysaa marka waa codsi walaalnimo biliis walaasheen waaye aan kor u qaadna support gareyno ma fahanteen waa hubaa inay ka faa'iidi doontiin sheekooyin waxyaabo badan oo cusub riwaayado madadaalo wax idinka qoslisiyo xigmado tira badan insha Allah marka waxa idin leeyahay gambaleelka furta si wax walba oo la soo geliyo janaalka oo idinku soo dhaco insha Allah okay xaqana taga qalbi wanaag official waaye sheekada marka sheekada wada dhageysanayna sagal sheekay noo heesaa ana idin dhageysanayo meesha oo wax yar aan fahmi waayana ana ka jawaabay marka soo dhawaada asxaabta soo dhawaada sheekada waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin sheekada waa sheeko jacayla marka daawasho wacan asxaabta waxa jiray gabadhaas waxay ahayd gabar adiga meelahaas waxay jirtay 16 17 camal ama bas ilaa 20 sano meelahaas ay jirtay sax gabadhaas waxay isbarteen wiil sax oo maaragtay xoogaa ciyaalka xaafada ah wiilka markay isbarteen jacayl buu ku abuuray gabadhii jacaylku ku abuuray wuu khiyaanay jacaylka asaga runka ma ahayn wuxuu rabaa gabadha inuu ka faa'iideysto jacaylka gabadh markuu ku abuuray buu aayar uu kaga dhuuntay gabadhii jacaylka markuu ku abuuray intuu uureeyay buu ka dhuuntay markuu ka dhuuntay gabadhii way wareertay gabadhii aad iyo aad u rafaaday markii dambe waxay dhashay gabadhii markay dhashay gabadheeda soo korstay asagana waa ka tagay asaga habeenkii ugu dambeysay oo sidoo u shaxshaxaaday ayaa hakuyanin nimanka dhan ma wada ahan laakiin nino soo u shaxshaxaaday markuu wala idinka qeelish ka alxsaday ka tagay oo maaragtay hawshiis ka gaaray muraadkiis mar meel dheer oo maraale marka waa u gooyba markaas ugu dambeysay asna suuq magaaladiisii wadankiisa adduunka suuq geesta ka gala sax marka gabadhii murugo iyo rafaad iyo wareer iyo ciil bay meeshaan iskugu soo aruursatay sax gabadhii ugu dambeyntii waa dhashay gabar bay dhashay markii gabadhii dhashay gabadheedii bay korsatay waxay ku talagashay go'aan ku gaartay nin dambe inaysan guursanin aysan la hadlin gabadheeda kaliya oo korsato aysan wax kalena aysan sameynin si fiican gabadheedii korsatay wax bay si fiican u bartay jaamacad bay geysatay iskool iyo dugsi bay geysatay edeb iyo akhlaaq bay ku barbaarisay naag adag bay ka dhigtay gabadhii waxay ku soo baxday sidii hooyada ka rabtay naag adag bay noqotay gabadha hadda kor hooyada gabadhii marka gabadheedii korsatay sheeko kale ugu soo dhacday ku soco gabadhii hooyadeedu si fiican bay u korsatay naag adag bay noqotay gabadhii sax
gabadh markii naag adag noqotay bay maalinka dambe jaamacadda markii ka baxday bay u yeertay jaamacadda markii kasoo baxday marka ayarba adigu isaga dhiirigelinaysay jaamacadda markii kasoo baxday bay u yeertay sax kaale bay tiri hooyo hadeertaan waxaa tahay bay tiri naag weyn waxaa tahay bay tiri naag qaangaar ah waxaa tahay bay tiri naag dee xor ah oo hadeertaan cirkaas marayso haal dhib iyo dheef baa kaa soo maray waad ka bixi rabtaa mar dhow sax marka waxay tiri gabadhaydiyey waada dhegayso sheekadan kuu haya dhegayso haye bay tiri hooyo iisoo sheeg waxaad ii haysid waxay tiri hooyo dhegaysa tiri aniga adiga rafaad baan kugu soo koriyey sax waxaan kugu soo korshay silac waxaan kugu soo korshay nolol adag wax intaasna adiga kuma tusin dhibaato intaas kuma aan tusin inaad aad rafaad kusoo kortay inaan aniga rafaad aan kugaa marooyo intaasoo dhan wanaagayga maahana xumaatay wax aan kuma tusaynin sax waxaan rabay inaad heerka nolosha ugu sarreysa aad ku kortid waxaan rabay inaad naag adag noqotid waxaan rabay inaad naag adag oo raaxa ku kortay noqotid wixii aan soo maray inaadan marin inaadan u dhawaanin baan rabay sax marka haddeetaan waad weynaatay naag weyn baad noqotay jaamacad waad ka baxday si fiican baa wax u baratay adduunyadaadaad rabta inaad hore u gasho soo maahan nimanku ma wada ahan niman wanaagsan nin wanaagsan oo ku raba oo ku jecel oo aqoon kaa badan oo maal kaa badan oo dadnimo kaa badan oo qurux kaa badan ninkaas nimaan ahayn ha isugu dhawaanin haddii kaleeto waddadan aniga maray baad qaadaysaa si oo fiican rafaadka aniga maray baad maraysaa oo ilmahaaga dandaruu u dhimanayaa adigana waad wareeraysaa marka hooyo naag adag noqo iska ilaali nimanka qaarkooda sax waxay tiri ninka aan kuu qalmin ha isku qoorin si fiican haye bay tiri hooyo waa yeeshay warkeeda gabadhii jaamacadda markii kasoo baxday waxay soo baratay businesska waxay gashay ganacsadii ku beertay shaqaaye meelo shaqa laga siiyey shaqooyinka markii meelaha laga siiyey shaqadeedii bay naag adag ee firfircoon oo waxay ahayd si fiican keligeed hooyada ilmo ka dhasho si fiican loo soo dhiirigeliyey sax shaqadiiba waaba ku baastay shaqooyinka hadba shaqo midba mid ka sarreyso waa loo diraa sax maalinka dambeta waxaa loo diray combanigeedii yacni gruubkeeda ay isla ganacsanayeen isla shaqaysanayeen waa waxaa loo diray seminaarkii marka loo diray seminaarkii aadeen waa safaray galeen macnaha haa safarkii yacni meel safar ay aadeen sax marka safarkii markay aadeen bay ayar waxay baratay wiilkii hooyada u sheegaysay wiilkii qurux badan ka caqli badan joog iyo jamaal bilaahi ka qurux badan nooci la yiri hala raadiyo haa ragga waxaa ku jira moogtahay hala qabtaa sii deynina hala raadiyo nooci la yiri waa waxay ka aqoon badan ka maal badan ka wax kasta ka sarreeyo nooci loo baahnaa haa nooci hooyada kala dardaarantay sax ayadana waxay bay ahayd naag adag oo dee hooyada warkeeda yeesho oo hooyada mahana cid kale aan aqoonin markaas wiilkii way ka heshay ayada intaysan arkin intaysan cani isla fiican isku baranin way ka heshay asna wuu ka helay gabadha ugu daba dhigtay gabadhan maaragtaan dadka asxaabtooda socday asna waa gaada ayadana waa gaade macnaha isgadgada la isku hayaa meeshan Sax. markaas wuxuu yiri gabadhan waa inaan isku biimeeyo oo aan galo oo aan ka fariisan haddaan midaan ka fariisan jaaniskan aan ka faa'iidaysan waayo dib dambe ma uu arkaayo marka jaaniska yaan iska beerdaraynin sax haye wuu soo orday xariifka isagoo xoogaana baqbaqaaya ilaa naagta waa qaadatay isaga dhanbu jacayl baa galay iyo faaranimonimeed markaas gabadhiiba horey u galay meeshii miis ay ku cunteynaysay oo fadhiday uu ugu imaaday gabadh dhacdhac fudayd waxyaabahaas dhan le maysan ahayn asna sidoo kaleeto markaas ula kaftamay oo la sheekaystay wuxuu usoo bandhigay xiriir jecel isbarasho usoo dhigay way ka aqbashay waxay tiri soo dhawow waan ku faraxsanaa inaan ku barto aad iyo aadan kusoo dhaweynaya waa la sheekaystay waa la isbartay si fiicana la isku bartay sida aad iyo aada loo sheekaystay aad iyo aada la isugu soo dhawaaday ilaa ugu dambeyntii marka dambeeto la isla ciyaaro oo la iska codsaday in la isla ciyaaro waa la isla ciyaaray xafladii laga wada jees ahaa xalfadii laga wada jeesay sax
xalfadii markii laga wada jeestay si fiican buu ay haddana wuxuuba kasii helay dheeshiida si ula ciyaartay buuba ka helay siyo midaan yaa ciyaaro badan hadday kula geli lahayd meelo badan ku fiican toosnaa marka si fiican way u cajabisay gabadhaas asna wuu gabadhu ku riyoonayay bay ahayd markaas gabadhii waxaa la gaaray xilligii xalfadda laga soo kala tagaayo oo la kala jiif tagaayo dadka si kala fiican raaxaysanayeen ayar buu gabadhii u yimid wuxuu yiri dee anaadeeray caawa ma iga baxsanayside sax yaa i afgaro sax kaama seexan kari la-aanta abaar weeye cadda samara macnaha yah ahay aqlilow markaas yaa inuu wuxuu rabaa ku qaftay aqlilow dhaaf diyaar waaye marka wuxuu yiri soo soco say tiri maya adeeray harso iga harsay tiri sax dib iga deg 2 tilaabo dib iga qaad bay tiri sax anigu ma rabo calaashaan inaan si xun wax u sameeyo sax oo aan si xun ku baxo ma rabo hooyadeeda si xun ku baxday adigu qisadeedii hooyadeeda uga sheekaysay waxay uga sheekaysay markaas wuxuu ku yiri haddii saas tahay iga raali noqo oo waxyaabahaas oo dhan ma jecla aniga xataa inaan kugu sameeyo haa oo aad iyo aad aniga kaaga helay marka raali noqo wuu raaligareeyey markuu raaligareeyey bay tiri dhima lahan marka wuxuu rabay gabadha aad iyo aad u jeclaaday wuxuu yiri maantayto haddii aan adiga iga fakatid buu yiri oo aad si xun iga fakatid aniga nolosheeda ma aqaan wax ii dambeenaayo marka haddeertaan wax kasta oo afkaada ku kala qaadid waan kuu sameynayaa wuxuu guuray ku ballameen inay isguursadaan waqti ay isguursan lahaayeen wax kasta bay ku ballameen sax markaas baa la isku soo dhawaaday ballamaa la kala siixday sax ballamii marka la kala siixday aad la isku soo dhawaaday farka ciyaara dhacay farka ciyaara dhacay farka ciyaarkii meel xun buu gaaray adigu oo aad u weyn sax marka hawl aan loo baahnina meesha ka dhacday sax subaxii dambeeto seminaarkii uu usoo dhamaaday safarkii calaashaan uu usoo dhamaaday safarkii markuu usoo dhamaaday waa la kala tegay meesha waa laga tegay ayna waxay aaday meesha ka imaatay meeshii ka imaaday asna meeshuu ka imaaday buu qabtay ninka wax raacaan asay u taallaa ilaa rabbiyo adaa dumar naga dhigay marka gabadhii ilaa naxifdi gabadhii habeenkii urwayba ku yeelatayba waxbaa raacay waxbaaba raacayba farka ciyaarkii ahay marka wixii baa raacay uma sheegin asna adiga bil kadib camal ay ogaatay ilaa habeenkii ma ogaanaysa moogta bil kadib ay ogaatay inay aysan caadi ahayn markaas caadi bay iska dhigtay yaa lagaa dareeminay bilowda sheekal dhaho dabaas adkaysa uu u yeeray maalinka dambeeto wuxuu yiri imo magaaladan jooga asugursanayna camal maya waalidiinteedan ku barayaa uu dhahay imo uu dhahay way imaaday magaaladii imay timid hotel u dejiyey wuu soo dhaweeyey si fiican buu usoo dhaweeyey markaas hawshii hawlka sida fiican baa dhacday oo wuxuu rabaa dadkeeda inuu baro sax maasha allah guurkeeda la qorsheynaya hoteelka intay deganayd marka waxaa jirtay aabihiis maamo ay isla ganacsanayeen horta midankaa iloobay wiilku waa madi gabadhuna waa madi wiilka marka aabihiis waa waxa sheer waxay yihiin maamadaas marka gabadheeda waxay rabtaa inay ku darto wiilka oo labada hantiyood aysan kala fakanin sax bay rabtaa maamadii gabadhii ba u yeeray wiilkii gabadhii markuu u yeeray wuu ogaa ilaa asagu ayada marka umuusa sheegin wuu ka qariyey sax gabadhii buu u yeeray wuxuu yidhi walaalay i dhegeyso aniga gabadhaanaan jeclahay gabadhii oo wuxuu u yeeray lagu dari rabay haa sax aniga gabadhaanaan jeclahay gabadhaanaa qalbigaygu jiraa anigana niyad adiga kuma hayo kumana guursan karo guur la isku qasbana faa-iido ma lahane kala danaysano waalidka aan qancino camal haa waalidiinta aan qancino inaan aniga ana israbin markaas gabadha laba fiilaaba istaabatay oo ayr hooyadeed u tagta qaracna iyadoo waa rabta ninka ilaane sax intaasoo dhan baa hooyadeed kusoo baragaraaminaysay markaas ninkan waa nin la deyn kara ma ahayne
ayar bay qaracanta hooyo ninkii naag buu guursanayaaye waa waree sax hooyadeed ayadoo dhaaranayso oo wareersanoo meesha u dambeysay ka taagantahay ee waxay u timi maamada wiilka dhashay markaase waxay tiri haye heblaayo masidaana xiriirkeeni masidaana wanaageeni masidaana kan weeye baba way ku qiyaasay waxay tiri maya wiilkayga waxaas ma samayn karo wiilkayga maya taas been weeye way u yartay xaasidnima bilaabatay mujeedin ya jacayl xaasid ma waayo horaa loo dhaha moogta meel walba iyo qabiil walba iyo midab kasta ay leeyihiin laba qof haddii is jeceshaa waaba qasab in lasoo dhexgalaaba haya maxaa dhici doona wiilkii u yeertay maamadii wiilkii markii u yeertay waxay ku tiri maxaa jiro maxay tahay gabadhaan waxay sheegayso sax siir waa run yir hooyo gabadhaan aniga jeclahay halkaana imaada hadeertaan waxay u timid inay ini barato ini baro guurkeena wuxuu dhacayaa insha allah marka waa inaa adinka anan kala heshi oo isbaratiin macnaha isbaratiin oo guurka ku heshiisinaan rabay sax oon ayada markaas kadib aan u raaca xaggooda magaaladooda si aan hooyadeedna aan usoo barto waalidkeeda sax markaas waxay tiri maya aniga waxaas ma maqli kari gabadhaanaan kuu qorsheeyey gabadhaanaa guursanaysaa cid kale ma taqaantid mana aqaani cid kale haddii kalena aniga waxaan bixiyaa inaa istilaba sax ama gabadhaas ama aniga markaas tiri hooyo maxaa sidaa u yeelaysaa sheekaa bilaabatay haye marka wuxuu yiri hooyo waxaa rabtid baan kuu sameynaya aniga maxaa isku dilaysaa hooyo adaa wax walba iiga muhiimsan hadal waalid ma dee ma sheekada heesta khidradaar ya jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo ma heno heesti sheekadaas waa haya markaas wuu u tegay gabadhii u tegay sii socday adag buu u dhalaa haywad marka usii socdo gabadhi hooyadaa ku tiri waa isdila ma war ma yaalo mayada rafaad wey marka uu u tegay gabadhii isagoo murugaysan oo wareersan oo waxaan ku yiri wejigiisii korkiisa lagu qalay maxaan ku dhahaa carabsi geel iyo lo wareersan arki jecel lahaayo hooyadiisna dhan hadda isdil ma dhigi karo waalid waa moogta waa inuu marka tanaasulo marka uu u tegay gabadhii waxay tiri maxaa lagu murugsantaa baby maxaa kugu dhacay maxaa kaa khaldan farxaddii aaway wanaagii aaway rayntii bahbashta ay la soo geli jirtay igu imaan jirtay maxaa wiiqay oo ku dhacay wuxuu yiri abaayo waxaa jirta dhibaato weyn gabadha aniga layla rabay in la ii guuriyo gabadhana aniga ma rabin marka hadda waxay taagtay hooyaday waxay tiri inaa istilo inaa aniga aad gabadha aan kula rabo aa guursatid waxba ma ka dhexeeyaan markaas wiilkii gabadhii way aqbashay inay wiilka warkiisa yeesho waa run hadeeba hooyo dhahda waa isdila marka igu yar gabadha igu soo yara dhahda maamada gabadhii uu soo kaxeeyey waxay dhahday way tusta maamada gabadhii maamada waxay tiri gabaray wiilkan gabar baa lagu darayaaye yaa iskaga bax meesha ka fogow aagabay tiri ka dhamo borsadaas soo qaado borsadii qaadatay yani hotelkii waaba kasii tagtayba meeshii magaaladeedii bay aaday wiilkii gabadhii habeenkii aba lagu meheriyey loo guuriyo la arooskooda dhacay ciil badana gabadhii arooskoodii baa dhacay gabadhii kalena meesheedii ku laabatay iyadoo wareersan murugo qalbi jab niyad xumo rafaad wareer wax kasta isku darsatay wallahi waa ciil hooyadeed marka uma sheegi karto waxaas yaabahaas oo dhan waxna umaysa sheegin niyad jab waa haya naag adiga iska dhigtay waxay tiri ilmahaaga ilmo wanaagsan weeye aaba wanaagsan uu leeyahay qadartuna way dhacdaa marka caadi iska dhig xalaal caleyg aad iyo aad keep going bay tiri hore u soco waxban ha ismurjin adi 2 beri 3 beri kadib intuu usan 7 ka bixin oo arooska uu ahaa bay wacday waxay tiraahday hay sidee tahay sidee dareemaysaa ma faraxsan tahay sax ma faraxsan yiri sidee buu dhahaa ma faraxsan sidee u faraxsanaanaa jacaylkeyga ma waaye farxadeeda dhamaaban waaye ma faraxbad iga sugaysaa sax waxay tiri farxad daan kula wadaagi rabay iyo nololtii ugu qurux badneed rabay inaan kula qaato farxadtii ugu wanaagsaneed rabay inaan kula qaato oo isla qaadano farxaddii iyo wanaagii iyo bashbashtii iyo wixii aan kula wadaagi lahaa waad ka hor dhacday adiga bay tiri meel kale u bayrayoo dee ii gooyey laakiin dhib ma lahan bay tiri wuxuu yiri maxay tahay farxaddu ii sheeg farxadda waxay tahay
maxaa waaye ii sheeg oo ku baryaaya ii sheeg farxadda walwalade sidii qoftee wax loo sheegayo waxay tiri farxadda aniga uur baan ku lahaa bay tiri waxaan rabo markii aan isguursano inaan surprise kaaga dhigo oo markaas farxadda adduunka isla qaadano baan rabay bay tiri صح markaas wiilku waaba suuxayba dhag uurki wuuba suuxayba asigi ma intaas markay dhahdo uuraan ba lahaayo waxaan rabay inaan surprise kaaga dhigo wuuba suuxayba ما نحين ما فرحت مسنحدين naxdin farxadii calaashaan farxad uurka ku farxay haa wuu suuxay kawma galay صح markaas isbitaal la geeyay ها isbitaalka markii la geeyay uu soo naaxay abaar kadib uu soo naaxay hooyadiisi aabihiisa u yeeray ها wuxuu yidhi hooyo iyo aabe aniga gabadha aan jeclaa uuray ii leedahay hooyadiisi aabihiis intaas markay maqleen waaba khalkhaleenba ayagiiba waxay ahayn dadde wiil keligiis u ahaa madii buu ahaa صح marka in urur markay maqleen bayba khalkhaleenba نور هذاك دحدو gabadhii way ku waashteen ها markaas waa la wacay gabadhii waxaa la yidhi hooy iyo aabe soo dhawaad gabadheena naga raali noqo waa kuu gafnay waa kugu degdegnay naga raali noqo gabadheeniye maxaan kuusoo dirnaa diyaaradii maa lagugu soo doonaa intee diyaaradood maxaa wax afkaada karabtid ka sheego bal marka hore gabadha markii lagu daraa ma dhahdo uuraan laay ilaahay markii yaa qorneed maya maysa dhihine haya waxay tiri wax dhahdid baa lagu sameynaya bal adiga wax lee dheh haya markaasay tiri maya waxbana ha isdhibin diyaarad iyo waxbaas oo dhan waxba ha keenine anaa diyaar anaa imaanaya insha allah haddii ilaahay idmo adugu anaa imaanaya isdejiye dhahde صح haya baa la yidhi waxaa loosoo diyaar garoobay waa lasoo dhaweyna in lasoo dhaweeya loo diyaar garoobay صح waxaa loo diyaar mataqaana sida loosoo dhaweynaysa waa mataqaana sida madaxweyne camal oo loosoo dhaweynaya boqortooyo ha ila dadka taajirin waa lacagay leeyihiin waana madi ha waana madi uur loo yeesha haya madi uur loo yeesha maxaa ka sugay صح markaas gabadhiina intaysa kaba soo tegin meesha waa la furay tii kaleeto alcayri ka bax baa la reerka adeer dadda kusoo gashay markaas gabadhii waxaa loo soo dhaweeyay sidii madaxweynihii ayr bay farxadda arooska adduunka oo ugu qatarsanaa waa loo dhigay صح markaas farxad bay adduunka halkaas ka gashay hooyadeedna waa guulaysatay ayadii waa guulaysatay riyadeeda waa u rumowday barwaaqo iyo bashbash ما شاء الله yaa wiilka quruxda badnaana waa hantiday wiilkii quruxda badnaana way hantiday haya wiilkiina waxay dhashay wiil aan laga aqoonin waaw oo asaga saa loo jeexay yaa waaw reerkii farxaddii adduunkay galeen maasha allah bashbashi barwaaqa ka dhacday yaa gabadhiina saasaa loo kolkoyay saas labada gacmood loogu siday saas jaceylka guuleystay jacaylka guulaystay marka maxaan ka dhigi sheekada magaceedu waa jaceylka guuleystay wallahi anigu waan ka helay adinkiina waa ka heli doontiin waxyaabo badanna janalka waa lasoo geli doonaa haddii ilaaha idmo insha allah nagu qaata sabskraibkana noo saara insha allah okay bye habeen wanaagsan oo qurux badan insha allah waqti kasta